haldoor waa barnaamij 4 biloodla ah oo dhiirigeliya haldoorada hilqaadka umadeed ah ee wax la taaban karo taray bulshadooda waa muraayad ay iska dhex arki karaan diranayaasha arrimaha bulshada waa barnaamij baraya bulshada Soomaaliyeed halyeeyada hibada iyo hal abuurka leh inay ku maamusaan waxqabadkooda ugana marag furaan joogidooda ifka waa barnaamij yoolkiisu yahay farku fiiqidda haldoorka mudan maamusidiisa ka hor dhimashadiisa haldoor waa bandhigaha hogaamiyaha berri waa iftiimiyaha aragtida toosan ee kaalin ka geysan karta danwadaagta bulshada iyo isku duubnida wadajirkeeda haldoor waa kadigaha sixun wax u aragga iyo u fiirfiirsiga dhaliilaha madhalayska ah waa u marqaati furaha waxtarka ruuxa u halgamay aayaha dalkiisa iyo danta guud ee dadkiisa joogidiisa ifka waa dhaxal reeb diiwaangeliya haldoorada hilqaadka umadeed ah haddaba haldoorka caawa u boqran barnaamijka ee inoo sida taashka xulashadu waxa uu ku dhashay degmada Jariiban 1952 halkaas oo uu ku soo bartay quraanka kadib Muqdisho ayuu u soo wareegay dugsiga hoose ah Xamar Jajab ayuu ka aflaxay dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku qaatay iskuulkii Masaarida ee Jamaal Cabdinaasir tacliintiisa sare darajada heerka koowaad waxa uu ku qaatay jaamacadda Cadan kuliyadeeda waxbarashada darajada heerka labaadna waxa uu ku diyaariyay jaamacadda London kuliyadda daraasaadka Afrika iyo Bariga darajada sare ee doctoraadkana waxa uu ku diyaariyay isla jaamacadda London daraasaadka Afrika taariikh nololeedka haldoorkeena caawa inoo boqran waa badweyn aan la gaarin gunteeda haddaan sayara dulka caadino waa aqoonyahan xeeldheere caalami ah waa qalinmaal ay aad u yaqaaniin Soomaalida iyo dunida kaleba wuxuu noqday xildhibaan iyo wasiiru dawlihii xiriirka caalamiga ee dawladii Cabdiqaasin waa suxufi aas-aasay wargeysi caan baxay waa cilmi baaro wax badan ka qoray arrimaha bulshada dhaqanka waa ababiyaha qaliilayda da'yarta ah waa tusaalaha iyo hiigsiga ay ku hirtaan inta qalinka sidata kadib burburkii markii uu baylahay afkeena hooyo waa haldoorkii u sarakacay dadaalkiisa hagar la'aaneed ee ku wajahan aayaha ummadiisa waxaa tusaale u ah oo hawlgalkii uu isu xilsaaray aasaasidda naadiyo iyo wargeys cilmiyeedyo caalami ah haldoorkeena caawa wuxuu aas-aasay hogaamiyeyna wargeys cilmiyeedkii ugu horreeyay ee af Soomaali ku soo baxay November 1972 waa u hiiliyaha afka hooyo iyo hal abuurkiisa yoolkiisuna waa ciribtirka jahliga iyo aqoon yarida afkeena hooyo wuxuu inta badan cimrigiisa u huray horumarinta afka Soomaaliga iyo inuu baro bulshadiisa kuna beero jacaylka afkooda hooyo inay majeertaan 40 sano ee u dambeeyay wuxuu maskax iyo maal iyo muruqba isugu geeyay tanaalinta afka hooyo milgaha adeegsigiisa habboon iyo kobcintiisaba wuxuu si dhiiran ugaga digaa cawaaqib xumada ka dhalan karta hadday bulshadu afkeeda dayacdo inta aynan idinla wadaagin magaca xidigeenna caawa caleema saaran haldoorka uu yahay marka hore aan isweydiinno maxaa loogu xushay haldoorka caawa kow waa madaale naftiisa iyo waqtigiisaba u huray horumarinta iyo tayeynta ereyga qoran labo waa maskax shiile shaqadiisii u horeysay noqday bare dabargooyo aqoon la'aanta saddex waa guddoomiyihii ururkii dhalinyarada dimuqraadiga ee Soomaaliya oo ahaa urur caalamiya afar
guddoomiyihii ururka ardayda afrika 5 aasaasihii iyo tifaftirihii guud wargeys xilliyeedkii u horreeyey ee af soomaali ku soo baxa 1972 ilaa 1977 6 hogaamiyihii xogeya guud ururkii dhallinyarada dimuqraadiga soomaaliyeed 1982 ilaa 1988 7 aasaasihii iyo tifaftirihii guud wargeyska hal abuur oo ahaa wargeys caalamiya oo ka faallooda dhaqanka afka iyo suugaanta soomaalida 8 aasaasihii iyo hogaamiyihii xarunta hal abuur 9 aasaasihii iyo guddoomiyihii u horreeyey ee naadiga been ee qalinleyda iyo hal abuurka soomaaliyeed kana tirsan dalladweynta caalamiga ee qorayaasha dunida been international 10 waa ka talabixiyii iyo farsamada abaabulkii shirweynihii carta ee dib loogu yagleelay dowladnimada soomaaliyeed 11 abaabulka kulamo aan tiradooda la soo koobi karin laguna qabtay gudaha dalka iyo dibaddaba kuna saabsanaa samata bixinta afka dhaqanka horumarinta qoraalka iyo badbaadinta soomaaliya xilligan xilalka uu haya haddaan eegno haldoorka caawa inoo caleema saaran bar kulankeenna waa guddoomiyaha akademi goboleedka af soomaaliga loo yagleelay daryeelka horumarintiisa oo ka howlgasha guud ahaan qaaradaha dunida gaar ahaan dalalka ku yaalla geeska afrika sida soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya oo ay ku kala filiqsan yihiin ku-hadlayaasha af soomaaliga waa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka loo igmaday dib u eegista turxaanbixintiisa haddaba aan isweydiinne waa kuma hormuudka caawa ee barnaamijku waa doctor maxamed daahir afrax buwaagtiisa caanka ah ee uu ku qoray afaf kala duwan sida soomaaliga carabiga iyo ingiriiska haddaan hal iyo laba ka xuso waxaa ka mid ah kuwa uu ku qoray af soomaaliga guurku sheeg maanafay gati macruuf durbaan been ah ruwaayad ambad ha ii iman lahayda talaseeg iyo kuwo kale xagga buug cilmiyeedyada uu qoray waxaa ka mid ah maadays faaqidaad masraxeed classification of Somali literature, the changing shop of Somali poetry iyo kuwo kale